sidaynu ka warqabno waxaanu bilownay wajigii labaad ee shirkiisaan hore u sheegay oo maalmahan banoo socday maanta shirkiyagii runtii waxaanu ku qiimeynay xaaladda uu dalku marayo dhinaca amniga dhinaca siyaasadda arrimaha doorashooyinka waxaa runtii noo cadaatay ama muuqatay in dalka runtii xaalad adag uu ku jiro amnigii in aynu ogsoonahay maalmahan ugu dambeeyey in qaraxii ay dhaceen tarad badan in ay jirto waxa kaloo aynu ogsoonahay in runtii hadda Mareykanku uu soo saaray ciidamada Mareykanka in dalka ka baxaan taas oo isleeyahay siyaasadda xumada dawladda waa qayb kamid ah waxaana sii kordhin doontaa xaaladda amni ee runtii dalku ku jiro ayaa ay sii kordhin doontaa ay khalkhalka ay ku sii kordhin doontaa waxaanu ognahay mandate-ka ciidamada AMISOM oo waqtigiisu dhow yahay iyo roolkii iyo muxuu ahaa doorkii looga baahnaa dawladda federaalka Soomaaliya runtii inay qaadato oo aan qorshe cad ka lahayn waxaynu arkaynaa iyadoo oo ay qas iyo khalkhal iyo buuq uu ka jiro stateska ama dawlad goboleedyada oo aanay ka madhnayn dawladdu runtii inay faragelin taban ay ku hayso xaaladda hadda ka soo korodhay gobolka Hiiraan oo dadka walaalaha ah anagoo ugu baaqayna in nabadgelyo iyo xasilooni iyo isfaham ay ku dhamaato arintaas lagu dhameeyo haddana ay keeni karto in ay doorashada runtii ay dib u dhacdo waxaanu ka soo saari doonaa runtii arintaas bayaan ama baaq ayaanu ka soo saari doonaa xaaladda ka taagan Hirshabeelle gaar ahaan gobolka Hiiraan waxaynu ognahay in hore aanu uga sheekayno uga hadalay gobolka Gedo iyo state-ka Jubbaland arintiisa waxa kaloo socda oo iyadoo xaaladda adag ee siyaasadeed iyo dhaqaale iyo amni uu dalku ku jiro waxaynu ka warqabnaa inay dawladdu ku mashquulsan tahay in ay xaraashto bolokiski ama ceelashii saliidda oo muddo runtii hawshaasi laga shaqaynayay process dawladda uu socday in deen cafin la sameeyo in la sugo habraaca dhaqaale ee dalka lagu maamulayo laakiin ay hadda muuqato wafdi uu hogaaminayo wasiirka macdanta oo ay ku jiraan guddidii maalmihii dhaweed la magacaabay ee xukuumaddii caretaker-ka ahayd oo aan xaq u lahayn ama aan sharci u lahayn iyadoo xukuumaddii rasmiga ah aan dalka jirin guddi la magacaabo guddidaasi maanta inay waan babaxday inay xaraashto ama ay dilaasho blockiska noocaas oo kala arinta lafteeda waxaanu ka soo saari doonaa statement waxa cad in loo dhaqaaqay in la raadsado xoolo ama dhaqaale la doonayo in doorashada runtii lagu galo taasina wax qarsoon ma aha waxa runtii shirkayaga aanu gabagabadii aanu magacawnay guddidii ku jirtay go'aamadayada ee ahayd guddida badbaadinta doorashooyinka qaranka oo nagala shaqayn doona inay dalkan ka dhacdo doorasho xor ah oo xalaal ah oo daah furan oo runtii dadku ay u wada dhan yihiin taana markaa runtii guddida maanta ayaanu iyadana aanu sameynay waxaan rajaynaynaa in iyaguna ay shaqadaasi ay runtii si hufan ay ula socon doonaan oo ay u kor joogtayn doonaan arrimahaasi aan doonayno in la qabto ama la sameeyo guud ahaan waxaan leeyahay waxaan ugu baaqaynaa dawladda federaalka Soomaaliya inay ka waantowdo in la abuuro xaalad aan dalkan runtii la mahadin oo aan doorasho sax ah la qabanin oo ilaa hadda go'aamadii iyo arrimaha aan soo saarnay wax jawaab runtii aan dawladdu ka bixin oo aad moodo inay rabto dawladdu inay hore ugu socoto qorshaheedii iyo balaankeedii ahaa inay iyadu ay doorashada runtii say rabtaa u dhacdo ay u maamulato